asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu saaxiibada qiimaha badan ee ku xiran janaalkan soo dhawaada waa mar kale iyo muuqaal cusub haddaba dabcan muuqaalkan waxaan uga hadlaynaa musalsalka walaalaha waatan daawada intaana muuqaal guda gelin fadlan daawada muuqaalka like noo saar sidoo kale dadku cusubta janaalka subscribe noo saar waa maasinta intaa ka bacdi ee soo dhawow haddaba mawduuca aan muuqaalkan uga hadlayno wuxuu quseeyaa cumar iyo aabihiisa kolley caaw waxaa soo baxaya gooskooskii labada ee soo baxaya ayaan filayaa maanta arbaca tahay subaxda khamiistan insha allahu tacaala waan soo faallin doonaa waa berit hole marka gooskooskana halkaas ayaan macluumaado aada u faahfaahsan ka heli doonaa muuqaalkan waxaan uga hadlaynaa dabcan macluumaadadii u dambeeyey sidoo kale cumar iyo aabihiisa dhibaatada dhex taalla wax yar intaana muuqaalka u gadi gelin waxaa jirta gabadh ee nagu soo celcelisay marar badan toolgaan ninka lagu magacaabiya bikaalkay ku dambeyn doona mase laga yaaba inay saaxiibaan kolley walaashay ani halkaas ma sheegi kari yacni waxaan dhihi karaa taxanaha iyaga kaa jecel la socodka IBK iyo beerkii sababtoo ah IBK iyo beerkii waxay leeyihiin shacbiyad aada u badan kuwaas oo aada loo hadalhayo hadalhayntooda mararka qaar waxay kor u dhaaftaa hadalhaynta astor ama hashtagga astor marka hashtagga ibeer waa mid aada iyo aada loo xiiseeyo taageerayaal badanna way leeyihiin IBK iyo beerkii marka ani ahaantii haddaan fikirkayga ogo ilama ahan yacni saas inay ku kala hadhayaan IBK iyo beerkii keliya yacni muuqaalada soo socda ama xalqadaha soo socda waxaa wada socon doona beerkii iyo gabadha yaasmiin lagu magacaabo laakiinse ma sheegi kari toolga iyo IBK inay wada socon doonaan xiriir uu ka dhaxayn doono yacni ma garanayay maybe ama laga yaabaa laakiinse ani wax macluumaad oo arrinkaasi gebi ahaanba ka haya ma jiro qof idin ka mid hadduu arrinkaas macluumaad ka haya dhan commentiga nagula wadaago muuqaalkan sii wadano waa tahay cumar yarka lagu magacaabo oo wada ognahay qofku yahay dabcan asagii walaalihiisaba waxaa laga soo bariyay qasrigii ay ku noolaanayeen xalqada u dambeysay laga soo buriyay saan wada ognahayba saas ay tahay isla gooskooska koobaad ee xalqada 19 waxaan aragnay cumar oo loo soo doonanayo saacadihii uu xaday waxaana saacadahaas u soo doontay axmed yilmaadna oo aabaha dhalay cumar sidoo kale axmed yilmaad cumar wuxuu ku dhahay saacadaha sida u dhaqsiyaha badan keen dadka intooda badan waxay leeyihiin cumar saacadahaas maadaama uusan soo celin karin lacag badanna ay ku fadhiyeen lacagtaasna uusan hadda faraha ku haynin waxaa ka soo gaari doontaa qoftii lagu magacaabayay seefkii ama cumar ayadiisa ama axmed yilmaad hooyadiisa ayaa ka soo gaari doonta oo cumar xilligaasi saacadahaasi isagoo lagu haysto ka soo gaari doonta laakiinse waxaa jirta arrin kale oo muhiim oo la hadalhayo arrintaasi waxay tahay cumar markii uu ogaado aabihiisa inuu yahay axmed yilmaad maxaa kala qabsan doona falcelintiisu say noqon doontaa yacni ma laga yaaba inuu xanaaqo sidoo kale ma laga yaaba in uusan waxba u arkin sidoo kale aasiya falcelinteedu say noqonaysaa kolley cumar qisada filimka hadda waqti xaadirkan ku socota saan u badinayno aasiya ma ahayaan filaynaa maadaama taxanaha magaciisa yahay walaalaha yacni sanad ayaan ereyga idinku celceliya mar waliba kolley idinkana maanka ku haysin ayay ila tahay walaalahayna qof ka mida aasiya cumar ama labadaa mid ka mida unbay sheekadu ku socotaa inkastoo badi cumar loo badinayo maadaama uusan cumar la dhalan aasiyo marka taxanaha luuqada ingiriiska kardashlarim ayaa u bixisay yacni taxanaha haddii ingiriis ahaan loo eego wuxuu noqon lahaa my brothers laakiinse kardashlarim ayaa daawacday in taxanaha ingiriis ahaan la dhaho for my family taas oo macnaheedu noqon doonto reerkayga dartiisa yacni ayada ayaa tiri my brothers taxanaha ma aha ayay tiri macnihiisu for my family ayaan ula jeednaa kolley yacni kardashlarim lama bedeli karo waa magac taxanaha lagu dhajiyey oo macnihiisu yahay walaalahay laakiinse dhanka ingiriiska waxay tiri for my family ku deysta ay tiri taxanaha magaciisu my brothers ma aha waa tahay inta haddii aan kaga nimaano cumar qisadiisa ugu socoto haddaba waxaa loo badinayaa cumar markaan cumar horta waan wada ognaa wax walbaa ka suurtooba asxaabta cumar wax walbaa ka suurtooda haddii ay noqoto lacag jacayl yani waxyaala badan ayaa ka suurtooda marka cumar xaqiisa ayuu dhacsan doonaa sidoo kale cumar isaga xaqa ma dhacsanayo waxaa xaq u dhicin doontaa wadaadii seefkii ahayd isla markaana waxaa isku dayi doontaa in ay tiraado wiilkan adiga ayaa dhalay axmed yilmaadow xaqiisa waa inaad keentaa haddii xaqiisa keeni weydidna maxkamadda ayaan ku saari doonaa oo hantidiina waad kala qaybsanaysiin yani hantidaada
adiyo cumar waad kala qaybsanaysiin oo qayb weyn ayuu kala haanayaa. sidoo kale cumar sida loo badinayo kuma soo laaban doono qasrigii laga buriyay waqti xaadirkan ee guri kale ay raadsanayaan inkastoo Shanguule ay sugayso. haddaba xalqada 6aad 59aad ma aha waan ogahay yacni 59aad hadda nagu soo wajahan anigu waxaan ka hadlayaa xalqada ka sii dambeysay ee 6aad 59aad horta walaalaha waxay joogi doonaan goonul ay joogi doonaan waa akhbaar rasmi oo la hubo goonul ay joogi doonaan ama dhamaadkeeda ka tagaan ama xilli kale ka tagaan. sidoo kale wadaadkan Seifkii lagu magacaabay inta imanayso waxaa loo badinayaa in ay tahay xalqad dhamaadkeeda. sidoo kale waxaa la sheegay ninkii Saarbi lagu magacaabayo oo maalmahan baan aad ugu mashquulsanayn dadka uu kala dhaxgalayo in ay noqon doonaan Aasiye iyo Duruuk. waa runtii arrin xiiso badan inkastoo Cumar iyo yarkaasi ay marar badan iska hor imaan doonaan ayna isdagaali doonaan. Cumarra uu Aasiye dhankeeda ka difaaci doona yarkaasi laakiinse waxa uu kala dhaxgali doonaa Aasiye iyo Duruuk ayuu kala dhaxgali doonaa yarka lagu magacaabo Saarbi kaasoo ah Cumar walaalkiisa ama dhanka aabba ay walaalo ka yihiin. waa tahay muuqaalka dhamaadkiisa ayaan soo gaarnay. marka muuqaalka dhamaadkiisa waxaan idinku sheegayaa macluumaado hadda ka hor nala siiyey kuwaas oo runtii xaqiiqiska ahaa. ku dhawaad waxaan idinla wadaagnay sanad ka hor kanaaladana kale ee Khalid Drama uu ka mid yahay. marka macluumaadadaas waxaa ka mid ahaa Shanguule walaasheed halkay ka dhacday. runtii macluumaad rasmi ah ay ahaayeen oo iyagu noo sheegeen. qadiyadaas ayaa dib loo furaysaa ula socday Shanguule walaasheed iyo sidoo kale Shanguule walaasheed carruurta ay dhashay ayaa la diyaarinayaa. waxaana la isku day doonaa markaan in ay taxanaha qayb weyn ka mid noqdaan. ma xiisaynaysaa dhanku matigu nagula wadaag. marka qadiyadaas ama yacni arrinkaasi iyo jilayaashii hadda ka hor yacni waqtiga loo waayey ilaa inas dhahay taxanahay mashquulinayaan ayaa dib loo furay. sidoo kale waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala xalqad soo socotay inay kor u kac samayn doonto kaanintii aan marka hore kaga tiray dhanka masalada Turkigana uu kusoo laaban doono. waa sida aan rajaynayno. soo marka daawada muuqaalkan la igno saar muuqaalkan inaan kusii dheeraado ma doonayay sababtoo ah gooskoska aan ugu soo wajahan caaw haddaan kasoo gaaro ifiid hore soo dhigaan ku dhawaad ilaa meelaha 10 ilaa 12 soo dhigaan waxaan isku day doonaa in aan isla markaaba idin soo faaleeyo. laakiinse haddii ay kowda iyo wax lamida soo gelinayaan asxaabta qiimaha badan isla beri aroorta ayaan soo faaleyn doonaa gooskoska. waanigu saaxiibkiina Khalid waxaan idinkaga tegayaa sidii caadada noo ahayd mar waliba. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.